bulshada ku nool magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharax Khaatimo Mudane Rashiid Diiriye Faarax oo isagu dhawaan ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxweynaha Khaatimo cuqaash iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle waxay hoosta ka xariiqeen in musharax Rashiid Diiriye Faarax oo horay wax badan uga qabtay intuu ka mid ahaa golayaasha maamulka Khaatimo iyo SSC-ba ee ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta waxa ay sheegeen in si weyn u soo dhaweynayaan waxayna haltan u direen talooyin iyo fikir ku aadan in la garab istaago musharax madaxweyne Khaatimo Rashiid Diiriye Faarax magacayga waxa la Axmed Xaaji Maxamed Ileeye laakiin waxaan ku magac dheeray Axmed Xaaji Dhiglo marka ugu horeysa horta waan salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan ku salaamay salaanta islaamka waxaan u rajaynayaa midnimo iyo walaalnimo iyo iskaashi iyo wada qabsi inta markaan ka gudbo Rashiid Diiriye Faarax lama fadhiisan meel isku macno arag laakiin ninka in badan baan hadalkiisa iyo internetka aan ka arkay waxaan u arkaa inuu yahay nin wax qaban kara oo halgamaada oo haliyay ah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa isaga iyo ninkii kale wax qabanayaba in ilaahay ku hanuuniyo haday Khaatimo tahay haday SSC tahay haday ummadda Soomaaliyeed tahay dardaarmnaha Rashiid Diiriye Faarax in ayna noqon sidii waqtigii hore aynagu dhacday ayna taladu inaga leexleexan aynu noqono dad midnimo iyo walaalnimo iyo muruq iyo maal iyo maskaxba isu kaashada inagoo aan cidna ku duulayn cidna dulmayn cidna xaqeeda doonayn laakiin xaqa aynu leenahay ee aynu ku leenahay dalka Soomaaliya iyo gobolada SSC in ay midoobaan wax qabsadaan ay ka mid noqdaan dadka xaqooda helaya in xaqooda lagu cuno meelo kale oo dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in ay gobolada Khaatimo dulmiga ay ku hayaan ay iska daayaan Maxamed Jaamac Maxamuud ku nool kamida dadka bulshada reedka ay ku nool magaalada Buuhoodle gobolka Cayn Rashiid Diiriye Faarax madaxweyne Tumo State Rashiid Diiriye Faarax waan u bogaadinayaa hamigaas sare ee uu la yimi iyo halabuurka cusub inay wax noqoto oo mustaqbalka dadka magaca sheegta uu soo saaro annaga jecel waa cid kasto wax u qabanaysan waan soo dhaweynaynaa waan gacmo furan kugu soo dhaweynaynaa wax baad u qabatay imikana horay u sii socon ku leenahay wax qabad wanaagsan baanu ka rajaynaynaa bulshada inaad meeshay maanta taala aad ka qaadaan rajaynaynaa alaykum rahmatullahi waxaan salaamayaa golahan xafladda waxaanu taageersanahay oo ku bidaysanahay oo diyaar u nahay Rashiid Diiriye Faarax musharaxa Khaatimo ah waa ku berber taaganahay ilaahayna waa ka baryaynaa wadada waxaan inuu mariyo waana ku bidaysanahay waana arinaanu muddo u fadhinay halkaasaanu dhaafin weynay midnimada Soomaaliyeed ee kalena waa taageersanahay Khaatimo waxaan leeyahay idinkuna dadaala isaga waxa weeye musharax madaxweyne waa soo dhaweynaa waana la shaqeynaa cadawga haysta Soomaaliya Sanaag iyo Caynna wixii laga kicin lahaa diyaar baan maanta u nahay Rashiid maxaa ku dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa Rashiid maanta waxaan kula dardaarmayaa horumarka uu wado inaan isku garab taagno awood iyo naf iyo maal baan siinno midnimada Soomaaliya muqaddasa midnimada Soomaaliya Sanaag iyo Cayn maamulahay maxaa leedahay ama Soomaaliya Sanaag iyo Caynna waxa weeye maamulkooda sidii loo dhisi lahaa dhamaystirka loo gaarsiin lahaa cadawgana looga qaadi lahaa baan diyaar maanta lanahay soo dhaweynaya marka insha Allah haddii alla ka dhigo xilligeedana way inay ku soo abaarnaataa fiican waxaan oran lahaa ka shaqee midnimada dhulbaante SSC gobolada SSC shacabkeeda inay midoobaan oo maamul sameystaan oo dawlad noqdaan maamul gobolad noqdaan ka shaqeeya wadadeedii hal la maro dhaqanka iyo hadii kale cuqaasha iyo waxgaradka dhamaan intay leeyihiin way loo midooba arinta loo midooba haddaan inta loo midooba waa maaragtay xildhibaanada iyo oday dhaqameedka iyo dadkii maaragtay waxgaradka ee soo dhistay iyo hadii ay leedahay Soomaaliya Sanaag iyo Cayn wixii ku nool odayaal iyo cuqaal iyo dhalinyaro dhamaan waan soo dhaweynaynaa Khaatimo ha noolaato Soomaaliya ha noolaato cadowgeedana Allah qabto waxaan leenahay soo dhawow Rashiid soo dhawow aad iyo aad baan u taageeraynaa ma sha Allah weeye waanu taageersanahay dhamaan haddaan odayaashii beeshanahay
iyo haddaan culimadii nahay dhammaan waanu taageersannahay ha noolaado. waxaan kula talin lahaa dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada wax u qabo si fiican maaragtay u dadaal dawladda Soomaaliya taageer salaamaya dhammaan ummadda reer Khaatumo meel kasta ay joogaan gobolada SSC waxaan leeyahay musharax madaxweyne waan taageersanahay ummadda reer Khaatumo meel kasta ay joogto waan taageersanahay waana soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne aad baan u soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waa nin dalka iyo dadka wax u qaban kara oo matali kara oo ka kicin kara cadawga haysta oo wax ugu filan aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaan wada aragtaan goboladii sida loo kala qaybqaybiyay sida qaybba dhinac loogu daray nin isu soo celin kara oo wax u tari kara waan u baahanahay waana soo dhaweynaynaa waana taageersanahay oo anigu aan jecelahay ama ummaduba jeceshahay sidii SSC ay u shaqayn jirtay oo madaxweynaha u ahaa Soomaaliya ay u baahnayd inuu u galo yani oo ay ratay oo Rashiid oo uga shaqeeyo madbuuca isaga hawsha iyada u gala yaan jecla Rashiidna waa taageersanahay oo waa taageersanahay raga taageersan baan ku jiraa anigu nin hore wax u qabtay weeye nin aan taageersanahay weeye nin wax soo saari kara weeye nin Soomaaliya ay u baahan tahay weeye haddii la idmayo Khaatumana ay u baahan tahay waxana qaban kara ay rortay weeyaan xamal loo sheegay waa qoyahan qoyahan waxba loo sheegay waa yaarag isaga waa yaarag mutacallin Rashiid isaga mutacallin oo waa yaarag kaasoo kale wax loo masaga ummadda wuxuu sheegay ummadda hogaamin kara